prime ministerka cusub ee Ethiopia oo xamar imaaday ee la yidhi 4 dekedood baa la siinayaa iyo heshiisyo aynaan garanaynin oo waxbaa la isku furi iyo kan iyo kee ayaabaan heeskan sameeyey aniga u arka waxyaabihii ka maqnaay oo dhan inuuna tirada ku darin balse kuwo kale ugu sii darayo waxayna leedahay heestu xigmadlaa waxaan xisaabtaminaya xukunka hayee xaqiisii maqan xog ku haystaha xeeba ugu daray xeelad been iyo xatayada shacab xilka ku helee xooray ballankee xiise nacab qabe xadka furi rabaa xaqiiqadii iyo xalig diin iyo xeerkii gooyee xaasidka noqdee xuushay sharafee xabaalay wanaag xiniyaalaha xornimada raba xurmadarri iyo xoolo ula dhaqan xawdku waadana xigga ku garaa xinjiraha quba xulxidha u gee xabash iyo cadow xigtadiisana xaqir dhammaan oo xaalmarin u sii xagjir baatiin xanuunka qarsada xajada guracan xaggay ku dambayn xasha lilaahiya xabad inay tahay xiskeen garanayn waxaa keentay arrintan ama heestan inaan idinla wadaago iyo fariintan aan dirayo waxaa socotay maanta ilaa shalay inuu madaxweyne farmaajo la kulmayo admiraal maxamed cumar cusmaan guddoomiyaha jabhadda xoreynta ogaadeenaya ONLF taasoo rajo muujisay in wadahadal iyo heshiis u dhici karo isku duubni iyo midnimona la muujin karo ha u qaadanin heeskan inaan anigu violence ama dagaal aan cilaaminayo waxaanse jeclaan lahayn raaligelinta ama qirashada qaladka ina laga dhigo public lagana sii daayo raadiyaha iyo tiifiyaasha ina guddoomiyaha keliya la faro oo raaligelintu ummadan ayaabaa jaa'ifo loo geystay iyo Soomaali oo dhan marka ma aha hal shakhsi wax ku kooban ma